waxaa jiray bilihii June iyo July iyo Mayba ee sanadkan cabashooyin ka imanayay dadweynaha oo tilmaamayay inaanay wada socon qiimaha doolarka lagu sarifo iyo maciishadu. haddaba si aanu taa u hubino, Banka Dhexe Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu daraasad ku sameeyay 125 meehradood oo ku kala yaala dhammaan gobollada dalka iyo magaalooyinka waaweyn. meheradaas waxay isugu jireen hodheelo, kaalmaha shidaalka, iskuulada, dhakhtarada, mukhayadaha, meelayo fara badan oo dadku ka ganacsadaan ayaanu ku sameynay survey oo aanu u diray shaqaale ka socda banka oo soo eega sicirka ay ku iibinayaan hoos ahaan ayaanu xog iibsanaynay. natiijadii daraasadaasi waxay noqotay in 160 meehradood ay ku iibiyaan sicirka doolarka ee suuqa oo ah 8500 ilaa 8400 aaga. من waxa weeyaan boqolkiiba 82 meheradaha aan soo maray waxay ku iibinayeen waxay ganacsigooda ku iibinayeen sicirka doolarka ku jooga suuqa. 35 meheradood ee soo haray oo u dhiganta 18% ama boqolkiiba 18 waxay ku iibinayeen inta u dhaxaysa 8500 ilaa 9500. dhowr meheradoo fara ku tirisa 10000 ku iibinayay. taas waxay muujinaysaa inay meesha ka baxday orahdii odhanaysay ma wada socdaan sicirka doolarka iyo maciishadu. kol haddii boqolkiiba 82 meheradoo ay ku iibinayaan sicirka doolarka ku jooga suuqa.